الله u naxariistay 6 qof ayaa ku geeriyooday halka 5 kalena ku dhaawacmeen shil gaari oo maanta duhurkii ka dhacay deegaanka Karasharka ee gobolka Togdheer gaarigan rakaab oo ahaa nooca loo yaqaan noohada ayaa dhimashadii iyo dhaawacii kala duwanaa waxa la soo gaarsiiyay cisbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaana warbaahinta u xaqiijiyay khasaaraha shilkaasi gaari agaasimaha cisbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto wax maanta baar 12 duhurnimo uu ka dhacay shil gaari meel u dhaxaysa magaalada Galooley iyo Karasharka dhexdooda shilka waxa cisbitaalka Burcana la soo gaarsiiyay 6 qof oo meeyda kuwaas oo kala ah 4 dumar ah iyo 2 nin oo labada nin mid yahay wiil yar yahay iyo 5 dhaawac oo gaariga waxa saarnaa 11 qof baa saarnaa shanta dhaawaca hal qof mooyee 4 kale dhaawacooda wuu fududaa qaarna imka cisbitaalka ka baxeen qaarna waa loo shaqeynayaa marka ugu horeyn waxaanu ka taxsiideynaa qaraabadii iyo eheladii ay ka dhinteen 6 qof ee ku geeriyooday shilka gaari iyo qaranka Soomaaliland ka geeriyoodeen dadkaas oo safar u socday in la ilaha illa raaji'uun baan leenahay allah u naxariisto inta ku dhim marka dadka dhintay waxay kala haayeen 4 dumar ah iyo 2 nin bay kala haayeen kuwa dhaawacana waa 5 qof hal qof mooyee inta kale dhaawacoodu fudud yahay oo qaar baa imka cisbitaalka ka baxay shilkaasuna wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa Qoyta iyo taliyaha ciidamada nabadgelyada gobolka Togdheer Jaamac Dhagjar ayaa dareewalada gaadiidka ugu baaqay inay mas'uuliyad weyn iska saaraan dadka ay sidaan Mahad Cali Goodir Star TV Burco.